Okay, maanta anaa kawaanka saaran. Haddaa ku dhaha ka waran, waxaa ku biiray tiim buskut dhinac laga cunay. Haddaa si kale kuugu dhigana, waan cayilay. Waqtiga hadda la joogo, miisaankeyga waa 105 kiilo. Waqtiga hadda la joogo, jirkeyga saan u eg yahay. Markaan soo jeedo, saanaan u ekahay. Inaan cayilay, ma lagu murmaayo. Markaan gees u taaganahayna, saan ayaan u ekahay. Markaan sii jeedana, saan ayaan u ekahay. Waqtiga hadda la joogo, jirkeyga waxaa baruur ah 20%. Waa ogahay qaar badan oo muuqaalkan fiirsanayo waxay isweydiinayaan maxaa keenay Maryuli Muscle inuu saan dhan u cayilo. Haddaan ku dhaha ka waran, 3 bilood ee la soo dhaafay waxaan rabo ayaan cunayay. Intaan rabana waan ka cunayay. Waqtigaan rabana waan cunayay. Sababta saas u suubinayana wax kale ma ahan. Waxaan rabay si ku talagal ah inaan isku cayiliyo. Waa ogahay qaar kale waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta Maryuli Muscle si ku talagal ah uu isku cayilsiinayo. Sababta wax kale ma ahan. Waxaan rabaa processkan intaan ku guda jiro oo aan iska ridaayo baruurtan isoo kartay. Waxaan rabaa in idinka motivation idin noqoto. Muuqaalada aan ka suubin doono processkan baruurtan isoo kartay aan iskaga ridi doono. Waxaan rabaa muuqaaladaas markaa fiirsataan inaad dhahdaan Maryuli Muscle haddii uu suubiyey anigana waa suubin doonaa. Processkan wuxuu soconaa 9 maalmood ama 3 bilood. Week walbe muuqaal ayaan ka suubin doonaa meesha ay wax ii marayaan. 9 maalmood ee soo socota ama 3 bilood ee soo socota waxaan rabaa ugu yaraan 15 kiilo oo baruur ah inaan iska rido. Haddaba muuqaalada aan ka suubin doono processkan inta aan ku guda jiro. Muuqaaladaas waxaa ku arki doontiin jimicsiga aan suubinayo, raashinka aan cunayo iyo wax walbe oo aan suubinayo oo ku saabsan processkan. Muuqaalka ugu horeeyo oo ah muuqaalkan. Muuqaalkan waxaa ku arkaysiin meesha aan ka bilaabayo. Marka aan bilaabayana jirkeyga siduu eg yahay. Iyo maalinta u horeyso jimicsiga aan suubinayo. Marka soo dhawaada. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaa muuqaalkan like inaad saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share gareysaan. Haddaa subscribe bihina fadlan subscribe dheh. Soo dhawaada mar koobaad, mar labaad waxaa noo ballan ah gymka. Okay, soo jeedaan waxaan joogaa gymka. Waa isi soo kululeeyay. Markaan iskululeeyay kadib jimicsigan ayaan ka bilaabay. Barbell row. Waxaan ka suubiyey 3 wareeg walbe waxaan suubiyey ilaa 8 jeer. Xisaabta waxaan bilaabay markii aan soo gaaray miisaankii aan ku training gareyn lahaa. Miisaankaas oo ah 120 kiilo. Saa arkaysaan anoo 120 kiilo ku suubinayo. Haddana waxaan isku dayayaa miisaankaas aan ku suubinayo inaan kontroolo. Markaan kor u soo jiidayo iyo markaan hoos u dhigayaba si murqaha loogu talagalay shaqada u qabtaan. Runtii jimicsigan wuxuu ka mid yahay jimicsiyada aan ugu jeclahay marka aan suubinayo murqaha ku yaalo dhabar. Markaan dhameeyay jimicsigaas haddana waxaan ku xijiyey jimicsigan bench press. Saa arkaysiin waxaan ku suubinayaa bir dhexda ka godan. Sababta birta dhexda ka godan ugu suubinayo wax kale ma ahan. Birtan dhexda ka godan markaa isticmaalaysid jimicsiga waxay ka dhigaysaa mid aad u adag. Birta dhexda ka godan markaa isticmaalaysid waxay suubinaysaa miisaanka markaa hoos u dhigaysid gacnahaaga si fiican ay hoos u aadayaan. Taasna waxay keenaysaa muruqa xabadka ku yaalo inuu si fiican u jiidmo. Jimicsigan xisaabta waxaan bilaabay markii aan soo gaaray miisaankii aan ku jimicsan lahaa. Miisaankaas oo ah 110 kiilo. 110 kiilo waxaan ka suubiyey 3 wareeg. Wareeg walbe waxaan ka suubiyey ilaa 5 jeer. Saa arkaysiin waxaan ku suubinayaa miisaan aan si sahlan markiiba 5 jeer uga suubin karin. Isla markaasna waxaan isku dayayaa miisaankaas aan ku suubinayo inaan kontroolo si murqaha loogu talagalay shaqada u qabtaan. Markaan dhameeyay jimicsigaas haddana waxaan ku xijiyey jimicsigan lat pull down. Waxaan ka suubiyey 3 wareeg. Wareeg walbe waxaan suubiyey ilaa 10 jeer. Xisaabta waxaan bilaabay markii aan soo gaaray miisaankii aan ku jimicsan lahaa. Miisaankaas oo ah 100 kiilo. 100 kiilo waxaan ka suubiyey 3 wareeg. Wareeg walbe waxaan ka suubiyey ilaa 10 jeer. Anoo 100 kiilo ku suubinayo haddana waxaan isku dayayaa inaan kontroolo marka aan suubinayo miisaanka aan ku suubinayo si murqaha loogu talagalay shaqada
u qabtaan. Markaan dhameeyay jimicsigaas haddana waxaan ku xijiyay jimicsigan incline chest press machine. jimicsigan waxaan ka suubiyay 3 wareeg. wareeg walba waxaan ka suubiyay ilaa 10 jeer. waa ogahay qaar badan oo muuqaalkan fiirsanayo waxay isleeyihiin Mariole Muscle dhinac walba mashiinka waxa ugu jirto 40 kiilo bes. laakiin waxaadan ogeyn mashiinkan suu culus yahay. mashiinkan dhinaciiba 40 kiilo inaad gishatid aaday u adag tahay. mashiinkan waa mashiinkii ugu cuslaa oo xabadka lagu suubinayo abid aan suubiyo. laakiin muhiimadda ma ahan culayska aan ku suubinayo. muhiimadda waxay tahay sidaan u suubinayo. saa u suubinayo marka aad fiirisid bal fiiri miisaanka hoos markaan usoo dhigo gacanteeda sidii hoos u aadayso anoo rabo muruqa xabadka ku yaalo inuu si fiican u jiidmo. midada kale markastoo aan suubinayo markaan kor u riixayo iyo markaan hoos usoo dhigayaba waa kontroolaya si murqaha loogu talagalay shaqada u qabtaan. jimicsigan waxaan ka suubiyay 3 wareeg. wareeg walba waxaan ka suubiyay ilaa 10 jeer. markii aan dhameeyay jimicsigaas haddana waxaan ku xijiyay jimicsigan seated cable row. jimicsigan gacantiiba waxay suubisay 3 wareeg. wareegiiba gacantiiba waxay suubisay ilaa 10 jeer. saarkaysiin hal jilib ayaa dhulka ii yaalo. sababta halka jilib uu dhulka igu yaalo waxay tahay waxaan rabaa inaan si fiican u dareemo marka aan suubinayo. saarkaysiin marka aan suubinayo dhabarkayga si fiican ayuu u jiidmayaa. markaan soo jiidayo iyo markaan celinayana miisaanka waan kontroolayaa. xisaabta waxaan bilaabay markii aan soo gaaray miisaankii aan ku suubin lahaa. miisaankaas oo ah 90 kiilo. 90 kiilo waxaan ka suubiyay 3 wareeg. wareeg walba gacantiiba waxay suubisay ilaa 10 jeer. sababta gacnaha shaqada si kala duwan ay u qabanayaan wax kale ma ahan. marnaba ma ogid labadaada gacnood tan awoodda badan. marka way fiican tahay jimicsiyadaada inaad ku soo darsatid jimicsiyo shaqada gacnaha si kala duwan ay u qabanayaan soo jirkaaga balance u noqdo. gabagabadii waxaan kusoo gabagabeeyay jimicsigan fly machine. jimicsigan waxaan ka suubiyay 3 wareeg. wareeg walba waxaan ka suubiyay ilaa 12 jeer. xisaabta waxaan bilaabay markii aan soo gaaray miisaankii aan ku suubin lahaa. miisaankaas oo ah 87 kiilo. saarkaysiin miisaanka aan ku suubinayo ma ahan mid sahlan oo markii si sahlan aan uga suubin karo ilaa 12 jeer. isla markaasna miisaankan aan ku suubinayo waxaan isku dayayaa inaan kontroolo si murqaha loogu talagalay aan si fiican uga dareemo ama shaqada ay u qabtaan inta badan. waxaa laga yaabaa qaar badan oo muuqaalkan fiirsanayo inay isweydiinayaan maxay tahay sababta Mariole Muscle uu hal maalin isla suubinayo murqaha ku yaalo dhabarka iyo murqaha ku yaalo xabadka. fiiri murqaha ku yaalo dhabarka iyo murqaha ku yaalo xabadka waa 2 group oo murqa ah oo iska soo horjeedo. marka aan suubiyo jimicsi dhabarka ah haddana waxaan ku xijinaa jimicsi ah xabadka. markaas aan suubinayo jimicsiga xabadka murqaha dhabarka way sii nasanayaan. markaan dhameeyo jimicsiga xabadka haddana waxaan ku xijinaa jimicsi kale oo dhabarka ah. jimicsigaas si fiican ayaan u suubin karaa sababtoo dhabarkii wuu nastay. taasna waxay ii saamaxaysaa jimicsigaas ku xigo oo dhabarka ah inaan si fiican u suubiyo isla markaasna miisaan fiican aan ku suubiyo. marka labada muruq oo iska soo horjeedo sababta hal maalin iskula suubinayo taas waay. marka muuqaalka ku xigo wuxuu noqon doonaa raashinkaan cunaayo processkan inta aan ku guda jiro kilocalorieska aan maalintii cunaayo iyo guud ahaan raashinkaan cuno nafaqooyinka aan ka helayo. waxyaabahaas ayaa muuqaalka ku xigo aan kusoo bandhigi doonaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalkan. saagadaasheeda ka arkaysiin waxaa ka muuqdo supplements badan oo kala duwan. adiga muuqaalkan fiirsanayo haddaad joogtid Yurub waxaan kuu haynaa wax walba aad u baahan tahay. annaga waxaan haynaa proteinska suuqa ugu fiican. waxaan haynaa gratiniska suuqa ugu fiican. waxaan haynaa wax walba waxa suuqa ugu fiican. shirkadaha suuqa ugu fiican alaabta ay soo saaraan bes ayaan gadnaa. haddii ay jiraan waxaad u baahan tahay waxaa si sahlan uga dalban kartaa website-keena. si sahlan ayaa gurigaaga lagugu keenaa. midyada kale hadda dad lacag haysan wax dhib ah ay leedahay ma jiraan. annaga waxaan isticmaalnaa barnaamijka Klarna. waxaa rabto ayaa qaadan kartaa lacagtana waxaa iska bixin kartaa 30 bari kadib iyadoo 1 shilin oo ribo ah uusan ku korin. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada fiidiyogan aad daawateen. ha iloobina fiidiyogan like inaad saartaan, commenti ka soo bixisiin, asxaabtiin u share garaysaan. haddaa wali subscribe yihiinna fadlan subscribe dheh. hadday jiraan waxaan fiidiyo kasoo suubiyo isla markaasna idinka aad jeceshihiinna commentiga igu soo qora. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada
aad daawateen muuqaalkan waxaan noo balanay fiidiyogan fiidiyowga ku xigo balanteenu waa caafimaad iyo muro